xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradeedka ee u ciiday Yuusuf Kayse Cabdilaahi oo waraysi gaar ah ku siinay telefishinka Som News TV xafiiska xisbigaasi uu ku leeyahay magaalada tan caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay xariga maalinta ka dambaysa si xoogaysanaya ee xukuumadda madaxweyne Biixi ay kula kacayso shacbiga Somaliland kadib xarigii lagula kacay boqor Buurmadow oo ilaa haatan ku xidhan mid ka mid ah saldhigyada ku yaala Somaliland waxaanu tilmaamay in mudaharaadkii ka dhacay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheerna uu saameyn ku yeeshay xukuumadda madaxweyne Biixi sidoo kale waxa uu ka hadlay Yuusuf Kayse Cabdilaahi xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka u ciiday sixir bararka maalinta ka dambaysa si xoogaysanaya maciishada si qariyoobaysa iyo sidoo kale xal u la'aanta xukuumadda madaxweyne Biixi iyo gudidii fashilantay oo magacaabay kasoo tala bixinta iyo sidoo kale xal u helida arrimaha sixir bararka oo iyagu noqday qaar hogmadow ku dhacay waxaanu tilmaamay in gudidaasi hore xisbiga mucaaradka u ciid uga hadlay inaan ahayn gudidaasi qaar iyagu aqoon iyo khibrada way aragnimo dheer u leh arrimaha sixir bararka arrintaas sixir bararku waa arrin taagan muddo dawladdaasi u dhalatayna way taagneed tii horena way taagneed mar walbana waxaad moodaa halkii sixir bararku taagnaa inuu kor uga sii socdo arrintaa annagu xisbi ahaan guddoomiyahayagu hore uga hadlay markii guddida la saarayba guddoomiyaha xisbigu wuxuu caddeeyey guddidaasina in waxba soo kordhinay tii baanaanu aaminsanay ilaa imika sixir bararku annagu cud ahaan waxaanu aaminsannahay inuu yahay maamul xumo dhaqaale inuu yahay inaanu ahayn masiibo ma garanaysaa meel kale ka timid iyo wax ma garanaysaa samaday nagaga soo dhacay inaanu midna ahayn waxaanu aaminsannahay inuu yahay maamul xumo dhaqaale oo sida loo daweeyana uu fudud yahay laba qodob waan ka rajinay dawladda madaxweyne muuse in xarigu badan doono iyo dawladdiisu inay wax qaban doonto mid waynu ka haynaa oo xarigii dawuu batay mid ka arkaya uu batay xarigii laakiinse dawladdii wax qaban lahayd baynaanayn wasiiradu labadii wiiga hore ama labadii birood hore way noo aamusnaayeen waxaan ahayn talo maxay soo wadaan sidii caadiga ahayd bay ku soo noqdaan meheradii bay imanayaan waxay imanayaan ma garanaysaa waxyaabihii hore dhaqamadii hore ee wasiirada looga barto aan islaamaa muuse uu bedelaya way bilaabeen jawaabihii bay bilaabeen inay mucaaradkii u jawaabaan toban bay ku wada hadlayaan waddadii unbaad moodaa inay ku soo noqdeen sidoo kale waxa uu ka hadlay Yuusuf Kayse Cabdilaahi xogayaha warfaafinta ee xisbigaasi sawirkii maalmihii ugu dambeeyay saameynta ku yeeshay baraha bulshada ee madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi uu ku booqday beertiisa ama sidoo kale geela uu leeyahay wax dhibo ma arko madaxweynuhu inuu booqdo beertiisa iyo nasasho u tago oo geelihiisa soo aago wax dhibo ma arko bacad madaxweynuhu qof bilaandiya nasasho u baahan yahay oo bixi kara oo soo nasan kara balse waa inuu maskaxda ku hayaa dadka sixir barar ku hayaan inuu maskaxda ku hayo